xasan wuxuu ku baxayaa meesha la yiraahdo Kenya horta Kenya anigu maba qababa xiriir halala sameeyo hatta hadduu qof kale yimaado sababtoo qaad bayna ku soo daldalaysaa madaxweyne kastana wuxuu leeyahay kalluun hal geeyo oo kalluunka hadda Kenya miyaysan naga guran waayada badeena noo xukumay haysatee walaalayaal maxaa la isu indhatiraya kalluun intii la doono bay jariifanaysaa oo xaasidnimo waxa weeye u isticmaalaysaa kalluunkeena marka waxaan qabaa madaxweyne xasan inuu ka digtoonaado arrintaas waa arrin qarannimada dhaawac ku keenaysa iyo Soomaalinimada in maalin kasta loo dhaho kalluun hal geeyo annagana maalintii la ka faa'iido 200 milyan wax iskeenaysa maaha waxaana filayaa inuu ka baaqsan doono sababtoo ah ninka uu hadda u socdo waa nin sida uu aftaag sheegay uga dhiman tahay xilkiisa 4 asbuuc laakiin hadduu aado waxa weeye timir lafda ku jira wax kala loo sheegay ma waa ka baxay laakiin waxaan ku soo gabagabeynayaa safarada xasan mid waxba laga faa'iiday laakiin inta kale wax laga ma faa'iido daan runta ka wada hadalno qaar waa kuwa isbariyeelayo qaarna waa kuwa uu dadkii ku dadaalay xilka soo saarsaday ugu tagay oo mashxarad la doonto anigu waxaan ka jeclaa safaradiisa inuu horta bal marka hore dawladdiisa dhisto markuu dawladda dhiso wax walba waxa ka muhiimsan dalka in marka hore dalkeena spacekiisa hoose la dhiso kadibna meelaha daadku inagaga imanayo la iska mooso meelaha aan jeclaa inuu ka bilaabo waxay ahayd Itoobiya sababtu tahay Itoobiyada xuduud dheer baynu la leenahay inta maamul goboleeda ee ka samaysan Soomaaliya kulli xad bay la wada leeyihiin Somaliland Puntland maxaan ku idhaahdaa Galmudug Hirshabeelle maxaan ku idhaahdaa سفرات بدنا حسن شيخ محمود محا إلى هذا سوكر ديان عوان آد ونكسن رنتي ويه هيك ما إن سبيس كستلا سجله سبيس كمرك هتجلسه عوان كانوا سوتشي توي وواحد آد ونكسن ويه إن لقى هذا حسن شيخ محمود هذا سفرات أوجاي لما أنتوا خرج باكو بحي ملايين تذكرني واقع شونيان وسفر وح على وحي سوكر دينيان أنا كرين actually safarada oo galay wadankeena ilhaan ay soo kordhiyeen qaarkood ama intooda badan lacag baa la kharash garanayaa fara badan dadkii baa abaar haysaa waxa weeye macluumaad baa jirta waxa jira sixir barar baa jira gurihii wasiirada lama soo magacaabin diyaarad buu saa u saanay waa dhaqan u lahaan jiray oo hadda siilaba jibaarmay haddii 40 maalmood gudahood oo 6 safar dibad iyo gudaha galay marka imisa haray safar 400 safar Soomaa anigu waxaan aaminsanahay runtii in wadankeenu maanta uusan qaadin ilaa xukuumad la soo dhiso xukuumaddu ayadu safar samayso wasiirka arrimaha dibaddu meelaha soo marmaro in madaxweynihii wadanku uu wax weeye diyaarad u saaraado ma ogtiin kharashaadku baxa madaxweynaha Mareykanka adduunka ku baxa wadanka joonaya oo silcaya oo dadkiisi baahan yihiin oo biiraan yihiin in 40 maalmood gudahood 6 safar uu sameeyo madaxweynihii wadankaasi anigu waxaan u arkaa wax runtii aad looga naxo waa wax runtii anigu waan arkay laakiin cid ka hadlaysaan waa oo arki waa mawduuc aad wanaagsan way waxaa la sheegayaa 7 cisho soo socota inuu u safrayo dhowr wadan oo kale lacagtan uu ku safrayo kharashaadkan uu burburinayo waxaan xagee uu ka keenayaa miyaan ku wanaagsanayn inuu dadka masaakiinta ah gaajoonayo iska daa wax kale fila Soomaaliya qaarkood u jiraan wax ka yar 1 kiiloomitir inuu biyo iyo u siiyo waddanka sixir bararka adduunka annagoo iminka Ameerika joogna baa sixir bararka yaaban inflation heerku maray Soomaaliya waa sidoo kale ka badaran ganacsatada waxa joogta man xayaal
oo markay maqlaan sixirkiiba iyo gaaskiiba qaaligaroobay afar jibaar saaraya waxa weeye maciishadii war anigu waxaan isleeyahay meelahaasaa kaga habboonayd kharashkaa waxa weeye uu ninkaasi ku safrayo intaasaan kusoo gabagabaynaya dhex mari karaa labadaa qof hadda maxay tahay waa dawlad sii dhacaysa iyo dawlad cusub waxa muuqda waxyaabo badan oo faashila muuqda ilaa al'aanka maanta waxa weeye 52 days bay maanta tahay haddana 53 ahayn wasiirka koowaad waa magacaaban wasiiradii kale lama soo dhamaystirin كل واحد قبانو أفرتها صنع النوع كوشرينو أفرتها صنع حسن شغمش فرديو إن النوع كوشرينا قبانو وحنا عن كلا سعونين أما حكي هذا يسوق قبوا وحي أنا فهن سنين أنا مش دولتي كشرين تهلس كي يعاون دوي عضها يولال أوكي أوكي سفير وقفان وطبع هذا سمع waxaan inii sheegayaa qof walbaaba waxa uu xor yahay afkaartiisa iyo aragtidiisa inuu cabiro qof lagu caburinaya ma jiro laakiin waqtiga bas inoo soo kooba muxaafid ahaw mucaarad ahaw waxa weeye moderate ahaw afkaartaada cid kuma caburinayso laakiin waqtiga inoo soo kooba mayga iniga iskale aniga inigama soo dhexgelayo codkan baan inii qaybinayaa dooda waxaan meesha u saarnayna wax la isweydiinayo inay tahay bay muhiim yani wax la isweydiiyay inay tahay ayaanu aragnay oo waxyaabaha shacabka Soomaaliyeed hadayse isweydiinin wax reality-ga wax badan ba dayacmaya marka anaga su'aasha waxaan u keenayna waxa weeye safarka ma laga maarmi karin mise waa laga mise muhiim buu ahaayo ajendayaal waaweyn lagu soo guuleystay oo waxa weeye dalka waxba loogu soo taray intaas weeye su'aasha meesha taala waa laga wada dhawaajiyay madaxweynaha safaradiisa madaxweynaha marka asaga la doortay 3 bari wuxuu haystay ra'iisul wasaare inuu ku magacaabo ra'iisul wasaare waa soo magacaabay ra'iisul wasaaruna 30 days buu haystaa maaragtay waxa waaye inuu soo magacaabo xukuumad soo marka always safarada marka madaxweynuhu uu baxaayo madaxweynuhu saas sheegteen ba mid ma ahan madaxa kaleeto muxtaar baa ka dhawaajiyay qarashka iyo expense iyo costiga waxa ku baxaya haddana saas ay tahay markuu madaxweynuhu uu safraayo madaxweynuhu waa ilaaliyaha qaranka dastuurka iyo dalka mataqaan shuruucda haddana saas tahay waxa looga baahan in mataqaan golihiisa wasiirada ama arrimo dibadeed ha ahaado haddii laga soo hadlaayo ama arrimo maaragtay muxuu ahaa amni ha ahaato ama arrimo in maaragtay golihii wasiirada oo shaqooyinkaas ku lahaa maaragtay inuu la socdo hadda safarkii Turkiga oo kaleeto dad aan xilal hayn oo garow online mataqaan nala fadhiyay laakiin dawladdiisa hore wasiir ka noqday baa la socday taamiins waxay ku tusaysaa intii qof Soomaali oo qaranka u shaqeynaya oo xil hay oo wasiir ah qarashka lagu bixin lahaa yaa inay maaragtay waxa waaye ka haboon qofka lagu bixiyay inay ka haboonaan lahayd qof noocaas maaragtay oo xil wasiir ah markaan waxaan ilaa safarada madaxweyne horta aad buu qaarkood ugu degdeg hadda electric oo kale to maaragtay la filayay shacabku waxay sugayeen in madaxweynuhu uu hadlo wixii propagandada ahayn ummadda maaragtay si niyad degan oo la hadlo uu tagay madaxweynuhu soo noqday waxa waaye kulay shalay waan arkeen dad yar oo group maaragtay uu la kulmay ilaa hadda wuxuu meesha kala soo kulay madaxweynuhu si fiican shacabka muxuu galama hadlin marka waxaan dhihi lahaa aniga waxa waaye safarka hadda Kenya oo kaleeto Kenya xilli kala guuray muxuu ahaa bay ku jirtaa Kenya bisha hadda soo socda 9keeda la dooranaya election already ninkan waa dardaarmay safiiradii uu la kulmay maalinka dhaweydna wad arkayseen meelka u dambeeyay Soomaaliland buu ku casuumay marka horta ma hubo inuu aaday hadda anigu mar dhow wili carada aad uma fiirfiin laakiin waan maqlay safar Kenya inuu madaxweynuhu ku baxay hadduu ku baxay ama uu balan gareynayo waa safar laga baaqsan karo oo dawladda cusub oo Soomaaliya inay maartay wax aad bay maartay u wanaagsanaan lahayd Kenya waagii Xasan Sheekh Maxamuud horena waa la ogaa haddana Farmaajo waa la ogaa heshiisyada ay galeen labadoodi midna waxba kama caana casaan marka madaxweynuhu inuu golaha wasiirada yani muxuu ahaa ra'iisul wasaaruhu soo dhiso ka bacdina wasiirkii de matalayay oo haday noqoto xiriirka caalamiga wasiirku de madaxweynuhu markuu madaxweynaha la kulmo hadii laga hadlayo arrimo gaashaandhig in marka ilaa hadda waxaan aragnaa anigu markaan qiyaasay conclusion aan ku sameeyay sawiradii maalinka dhaweeyay la soo qiimeeyay oo electric aan arkay madaxweynuhu still campaign buu ku jiraa arrinta uu wado maaragtay waxa waaye arrin wax u egtahay campaign ahaan ah uma eka madaxweynuhu nin guuleystay oo shaqadii maaragtay dalka ay u taalo oo xilliga mataqana nin shacab oo kula safri lahaa oo waliba asagoo private church muxuu ahaa coffee ku cabayo soo dhigay Twitter kana wada aragteen baa laga yaabaa
nin garow oo leen daadiinay yaa waftiga madaxweynaha turkiga ka mid ahaa qarashkaas xagu ka imaaday dad baa waxay leeyihiin waxay Soomaalida waan ogahay waxa madaxweynaha loo soo diraa diyaarad wadanka diyaaradda ku soo diro freega maxay tahay benefitkiisa ujeedadu uu naga leeyahay maxaa waay muxuu naga ramaa yaa maxaan ku bedelanay yaa marka safarada madaxweynuhu asagoo hadda yani 60 bari aan gaarin 6 safar uu safray si la sheegayo kuwa badan oo laga baaqsan karaa maxaa ku jira in golo wasiir la soo dhisnaa aad ay qurux badnaan lahayd sifa maartay wasiirkii tagadaas qaabilsanaaya madaxweynuhu maartay always isku raacaan madaxweynuhu dee heshiisyada asagu gaar ma taqaanaa waxa way gooni ah haddii noqotay in wasaaradda arrimaha dibadda laga hadlo wasaaradda gaashaandhigga wasaaradda amniga waa in wasaaradda kasta maartay dhigeeda maartay sifa loo helo saas ay qurux badnaan lahayd dee talada dalka madaxweynuhu asaga haya toban baa dhahay dadku 100 buu baxaya laakiin aniga aragti ahaan waqtiga hadda la joogo waxa ay soo kordhisayna ma arko wax badan oo hadda ay soo kordhin ka dhana ma arka dal yani electionka caleema saarka markuu ka qayb galayo inuu waxa Kenya kala hadla haduu aadayo macala waa haduu aaday waaye waxa weeye safaradii hadda uu galay xasan sheekh maxamuud wax laga faa'iido aan garan maayo xabad laga ma faa'iidin kharash burburin uu baa laga faa'iido iyo wadankii waxa weeye baahi iyo abaar iyo macaluul iyo sixir barar hay ku jiro buu iska saf diyaarad buu saarayay xukuumad ma jirto bal ma ku mashquulo inuu intuu prime ministerkii uu magacaabay wasiiradana kulay isaga soo xoranayee way qoran yihiin inuu wasiiradii magacaabo oo kuwan meelaha u diro war adduunka lama arag wadan saas oo kale Soomaaliya oo madaxweynihiisii isagoo 40 bari aan joogin 6 safar galay haddana diyaarad kala sii saaran oo aan ka badagay war kharash kan diyaaradda lagu saar midna ogaada dawlad u soo dirtay diyaarad ma jirto cidna diyaarad soo ma dirto وعد ديارات قدرتها وحسن كنت حسن صوفو ديارتها ما جرتو خرج كي قسمته وحا انت يرادو ماشي ugu yimi ee la ururiyay wuxuu ku tumanaya waxa weey ku tumasharinaya anigu ma arka safar ee tabashan u arkay dalxiis ma arka waana wuxuu dhaqan caado u lahaan jirayo bojada bari hore taqaaneeni madaxweynuhu diyaaradaha uu jecel yahay diyaaradaha aad buu jecel yahay safarada faraha badan waa wixii waxaan aaminsanahay yani dadkeena waa gaajoonaya waa baahan yihiin war abaar baa jirta adduunyadii oo dhan baa hadal haysa inaga og macluul baa jirta sixir barar baa jira adduunkii oo dhan baa la gaajoonaya la baahan yahay Ameerikayna saamaysay sixir bararkii gaaskii $2 gaalanku ahaa ba $6 sii maraya rootidii baa qaali garooday adduunka oo dhan eeg Soomaaliya oo aan garanay ganacsatadeedu oo dhigmiirata tahay waxa la sheegay kiiska bariiska intuu marayay sanadkii hore hadda laba jibaar buu maraya abaartii baa ka daran war lacagta madaxweynuhu ku safrayo ee safarku galaba uu dhowr milyan soo gubayo war miyaysan ahayn in meel kale la geliyo oo ku habboonayn haddii aan u soo noqdo mawduuca waan ka baxayaa safarada uu galay xasan sheekh maxamuud wax laga faa'iiday ma jiro khasaare mooyaane lacag burburis mooyaane waqti lumis waqtigeebu luminaya kharashkii lacagtu luminaya يعني وان موضوعا عاد بيسو جيتي واد mahadsantiin raalli hada signalka iga dhumaya dad waxaan u soo diray kohoostiga marka soo wala kohoostiga soo qabsada signalka aniga iga dhumaya waxa laga yaabaa khadka inuu iga dhumo signalka aad igu ciriiriya marka kohoostiga soo qabsada barnaamijkan ku socda waxa warsame gacanta u taagan tahay qofkii ku xiga asagana gacanta soo taaganaya marka mawduucana qof inoo soo kooba si aynu waqtiga hal mar iskugu filaysiino qof walba oo fikirkiisa uga dhiibto waana mahadsantihiin السلام الله عليكم دمان وادي ودا سلامي اخيارته موضوع ما كسوني سفرada badan ee madaxweynaha jamhuuriyadda ku baxay wadamada dibadda ku aaday maxay hadda soo kordhiyeen ilaa hadda waxa muhiim ah in safarada la kala qaado safar kastaba si gooniya loo fiiriyo ani laba safar oo muhiim aan arkay safaradii uu galay oo natiijooyin hor leh ay ka soo baxeen walow safarada uu baxay hadda ka hor xiriir la lahaa laba wadan
oo xiriidho wanaagsan ay xukuumaddii ka horreysay ee hogaaminayay maxamed cabdullaahi farmaajo la lahaa oo la soo jadiidiyey heshiisyadii oo si hor leh loo bilaabay in loo wada shaqeeyo ani waxaan aaminsanahay walow xog badan aanan ka hayn kii ugu horreeyay lagu tagay imaaraadka xog fiican oo buuxda kama hayn laakiin labadii dambe ugu dambeysay turkiga iyo kii ugu dambeeyay haddadan marka dhowahaye maalmihii iida ahayd kusoo beegmay Eritrea labadabaan waxaan u arkaa laba guulo ah qarashka iyo waxyaalaha ku baxayaan xaggaas ma fiirinayo laakiin mira dhalka uma fiirinaya turkiga waa wadan kaliya hadda ma garanaysaa inta ugu badan ee gargaarada iyo garab istaaga Soomaaliya halka ma garanaysaa horumarka ahaato kaabayaasha dhaqaale inuu ma garanaysaa ka caawiyo in uu amniga ma garanaysaa ka gargaaro waa wadamada ma garanaysaa is leeyahay muhiim u yihiin Soomaaliya ahdaafta ay rajaynayso ay inay kaga baxdo dhibaatooyinkan ragaadsaday colaadda iyo dhaqaale xumada waxyaalo badan waxaan is leeyahay waxa u yihiin ciidaha ma garanaysaa wadamada ma garanaysaa strategic wise kaalmeynaya laf dhabarka u ah xiriiryada ma garanaysaa caalamka ay la yeelanayaan iyo iscaawitaanka la iscaawinay Eritrea keegayga ku dambeeyay inta dadka badan waa ka dharagsan yihiin kaliya waxay fiirinayaan malaha dhowr ciidan oo naga joogtay ciidamadu waa muhiim amniga ka qayb qaadanayaan balse laakiin Eritrea iskaashi kale oo ballaaran ba ma garanaysaa qodobadii ka dhex muuqday haddaad fiirisid Eritrea waxay ogolaatay heshiisyada kamid ah diaspora dadka ma garanaysaa inay ganacsiyo la isweydaarsado dadkan ma garanaysaa qurbo joog iyo ciiday doontaba Soomaaliya waxay doontaba noqotay bulshada Soomaaliyeed inay ganacsiyo ka abuuran karaan waxaanu ogsoonahay